maaha dhacdo aad malayn karto markii aad maqasho maxaabiis ka tirsan ururka al-shabaab xukun sarayaalna ah ayaa ka baxsaday xabsiga dhexe ee dowladda Soomaaliya. Haddaba way dhacday arrinkan waxaana xabsiga dhexe oo ku yaala goob amnigeeda aad u sugan yahay ka baxsaday saddex xukun sarayaal oo ka tirsan ururka al-shabaab. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegtay magacyada ragga saddexda ah ee maanta dibadda uga soo baxay xabsiga dhexe maadaama aysan weli ka hadal saraakiisha iska leh mas'uuliyadda ilaalada xabsiga. balse xuraansi aan ku sameynay dhacdadan ugubka ah ee si wiiqaysa kalsoonida lagu qabi karo taliska sare ee ciidamada asluubta kana mas'uul ah ilaalada maxaabiista ayaan ku ogaanay naaneesyada ragga baxsaday ee mid ka mid ah ciidamada dowladda ay gacanta uga soo dhigeen meel u dhow kawaanka degmada Xamarweyne. waxaa lagu kala naaneysay saddexdan baxsatay ceel macaan, Tolman iyo Jeesteye, dhammaantoodna al-shabaab ayay ka wada tirsan yihiin. raggan ayaa ku kala xukunaa xabsi daa'im iyo min 15 sano oo xarig ah. ceel macaan oo ku xukunaa xabsi daa'im iyo Tolman ayaa wili baxsad ah, halka Jeesteye ciidamada ay soo qabteen dibna loogu celiyay xarunta xabsiga dhexe. laamaha amniga oo iskaashanaya ayaa ku raad jooga soo helidda labada maxbuus ee hadda maqan. waxaan la ogeyn qaabka ay u suura gashay ka baxsashada xabsiga iyo haddii ay jirto cid u fududeysay. kiisas aan baxsashaal ahayn ayna dib banaanka ugu soo baxeen rag shabaabnimo u xukunaa muddo xabsiyoodkoodana soo dhammaystay ayaa tiro dhowr jeer ah la arkay in ay ka qayb qaateen howlgallo qorshaysan ay caasimadda ka fuliyeen al-shabaab. dhowaan ayay ahayd markii shaqo joojin lagu sameeyay Generaal Xirsiile oo haysta xabsiga dhexe kadib markii cadeymo lagu qanci karo loogu qabsaday maxbuus u dhintay xanuunka macaanka oo si awood ah uga soo saaray halkii lagu dabiibayay. xarunta xabsiga dhexe ee dalka ayaa ka mid ah rugaha ugu ilaalada adag xarumaha dowladda maadaama xabsiga ay ku jiraan maxaabiis ku dhacay falal waaweyn oo kala duwan. sidoo kale waxaa ka agdhow xarunta maxkamadda gobolka Banaadir oo iyana ammaankeeda aad loo adkeeyo. shicibka gobolka Banaadir ayaa isweydiinaya sida ay u sahlanaatay ka baxsashada xabsiga raggan saddexda ah ee al-shabaab ka tirsan.